الحديث الخامس عشر: صور من كمال الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحديث السادس عشر: النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. بسم الله. waxaan qaadanaynaa xadiiska 15 iyo xadiiska 16. suura min kamaali liimaan weeye xadiiska koowaad aan qaadanaynaa. tirada kitaabkana waa xadiiska 15. can abi hureyra radiyallahu canhu. abi hureyre waxaa laga wariyey allah ka raali noqde anna rasuulallahi in rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee qaala uu yidhi: mankii kaana ahaaday yu'minu mid rumeeyey billaahi ilaahay walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro falyaqul ha yidhaahdo khayran hadal wanaagsan aw liyasmut ama ha iska aamuso afkiisa ha haysto. waman kaana kii ahaaday yu'minu mid rumeeyey billaahi ilaahay walyowmi alaakhiri iyo maalinta dambe falyukrim jaarahu jaarkiisa ha karaameeyo, ha ixtiraamo, ha xaq dhowro, xaqiisa ha iska gudo. wamankii kaana ahaaday yuuminu mid rumeeyey billaahi ilaahay walyowmi alaakhir iyo maalinta dambe falyukrim ha karaameeyo, xaqiisa ha iska gudo, ha xaq dhowro, ha sharfo, ha sooriyeeyo dayfahu martidiisa. rawaahu bukhaari wa muslim. xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo saaray. xadiiska 16aad nahyu can qadab. sida rasuulku uu u xaaraantinimeeyey, u mamnuucay, uu diiday cadhada. can abi hureyra radiallahu canhu alla raaliha ka ahaadee waxaa laga wariyey anna rajulan in nin qaala uu ku yidhi lilnabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee awsinii ii dardaaran. qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam laa taqdab ha cadhoon. faraddada miraaraa wuu ku celceliyey nebigu. qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam laa taqdab ha cadhoon. rawaahu bukhaari. xadiiskana bukhaari baa wariyey. su-aal baa kaasoo kala timaado oo waxaa jira dad badan oo nebigu u yimi sala allahu calayhi wasalam oo ku yidhi ii dardaaran. nebigu qof waxbuu ku yidhi, qof wuxuu ku yidhi tusaale ahaan waalidkaa ka ducayso, qof tusaale ahaan dadka qaar soonta ama salaada, qofba nebigu waxbuu u dardaarmay. halkaa culimadu su-aal bay isweydiiyaan waay. hal su-aal baa nebiga la weydiiyey dardaaran, jawaabo kala duwan buu bixiyey sabab. inta badan waxaa la yidhahdaa nebigu tusaale ahaan maadaama loo waxyoonayey, maadaama oo wax badan u muuqanayeen, nebigu qofkaas u qiimeeyaa. qofaa tusaale ahaan cadho badan ha cadhoon baa la odhanaya. qofaa tusaale ahaan ama soonta ama salaada ku liita, soonta salaada loo dardaarmaya. qofbaa tusaale ahaan hooyadii waalidkii nool yihiinoo hadduu doono aan u dawacsanayn, halkaasaa lagula dardaarmaya, waalidkii baa loo dardaarmaya. marka waxaa dardaaranada nebiga kala duway. nebigu wuxuu eegaya qof kastaba nuqdatu dacfi waxaa la yidhahdo weak point. qof kasta halkuu ka jilicsan yahay, halkeeba qofku daldaloolka leeyahay, halkeeba qofka diintiisu ka dhaawacanta, halkaasuu nebigu gufeynayay calayhi salaatu wasalaam.
waayahay haddana u nimaano faa'iidooyinka iyo axkaamta laga qaadanayo labadan xadiis. xadiiska koowaad oo tartiibta ama nambarka uu kaga jiro kitaabkuna ay tahay 15 waxaan ka qaadanaynaa 1 xakamaynta carabka. hadalka xun ee ah been, cay, xan, aflagaado waxaasoo dhan waa dembi, waa la mamnuucay. aamusnaanta ayaana ka khayr badan hadalka aan faa'iidada lahayn ama dembiga waayo aamusnaanta dembi lagugu qori maayo, laakiin xan iyo shar iyo dhibaato dembi baa lagugu qorayaa. aamusnaantana waxaa dhaanta hadalka wanaagsan. hadalka wanaagsan waa sadaqad, xasanaad baa lagugu qorayaa. quraan akhriska oo kale, ducadoo kale, dadkood wax wanaagsan u sheegtid oo kale, runta oo kale, arrimahaas oo dhan. waaye xuquuqda deriska. derisku xuquuq buu leeyahay. maxaa ka mid ah in aan la dhibin, in la caawiyo, in loo samro haddii dhib kaaga timaado. wahaakada qodobka xiga maamusida martida. martida oo la karaameeya waa diin iyo sharaf. waxaa la faray in si wanaagsan loo soo dhaweeyo, loo soo yeeyo, loo qaabilo, weji wanaagsan lagu qaabilo, ugu yaraan 1 maalin si gaar ah, sidoo kale 3 maalmood guud ahaan, sida xadiisyo kale ay sheegeen. waxaa la sheegaa in cumar bin khataab radiallahu canhu uu yidhi haddii 4 reer qof ku dhex dhinto marti uu ahaa oo qofkii xaalkiisa la qiimeeyo oo sababta u dhintay ay tahay gaajo, 4 reer baan eegaya, iyaga cid gaajo ma uga dhimatay? maya. haddii 4 reer ninkaas dhexdooda ku dhintay iyagu gaajo aan u dhiman oo qofkiina gaajo dhexdooda ugu dhintay, waan dilaya. sabab iyaga cid uma dhiman si qof gaajo ugu dhinta. almacno xuquuq buu qofku ku leeyahay jaarka ah in qofku uu muxuu ahaaye uu sooriyeeyo. wax badan baa la sheegaa, culimadu sheegaan ilaa iyo heerka qofku martidahay uu waajib ugu leeyahay qofka uu u yimaado inuu sooriyeeyo. waana arrin qofka muslimnimo wanaagiisa ka mid ah inuu qofku martida sooriyeeyo qofka islaamka u yimi. iimaanka dhabta ah. nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku xiray ficiladan iimaanka Allah iyo maalinta aakhiro si uu u muujiyo in akhlaaqdu ka mid tahay iimaanka. qofka ilaahay rasuulkiisa rumeeyey waa la odhanayaa deefkaaga hagaaji, jaarkaaga hagaaji, muxuu ahaaye khayr ku hada. waxaasoo dhan isku xidhnaanshaha la isku xidhay baa laga hadlaya. waaye haddii intaa ka gudubno xadiiskaas, xadiiska xiga xadiiska labaad ee ah tartiibta kitaabkana nambar 16 waxaan ka qaadanaynaa 1 in caradu qofka jarka la liso, in caradu qofka hoddo, in qofka caradu ay dambaajiso, inay khatar geliso, inuu naf gooyo, inuu naf dhaawaco, inuu naftiisa laftigeeda dhaawaco inta naf kaleba la gaadhin, inuu hantidiisa dhaawaco, inuu sharafkiisa dhaawaco. marka waa khatar caradu. sidoo kale carada faraha badan waxay sababtaa dagaal, kala tag, dulmi iyo dembi. xadiiskan sidoo kale laga qaadanaya waxaa la dhaho xakamaynta nafta, self control afka qaar lagu yidhaahdo. qofka xooggan maaha ka dadka garaaca ama awoodda jismiga leh, laakiin waa ka naftiisa xakameeya markuu cadhoodo, sida xadiis kale uu inoo sheegay. haddaba maxay yihiin hababka lagu daaweeyo cadhada? 1 in qofku aamuso, markuu cadhoodo inuu aamuso. hadduu hadlo maxaa dhacaysa? dee wuu caytami ama wax aan munaasib ahayn baa kasoo baxaya, sharaftiisa iyo karaamadiisa dhaawacaya. hadduu taagnaa inuu fadhiisto, hadduu fadhiyo inuu jiifsado, cadhada way dejisaa. in la weysaysto, cadhada way dejisaa. in la yidhahdo acuudu billaahi mina shaydaani rajiim, sida xadiiska ku soo aroortay ninkii indhaha waxa weeye guduudnaaye afka abuurka ka seydhiyay nebigu yidhi qofkaas shaydaan baa ku guuraya. kelmad baan garanaya hadduu yidhaahdo uu degayo. asxaabtu dheheen maxay tahay kelmaddaasi? uu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam waa acuudu billaahi mina shaydaani rajiim. asxaabtii baa u tagtay waxay ku dheheen acuudu billaahi mina shaydaani rajiim dheh. oo miyaan waalanay buu ku jawaabay, oo miyaan waalana. marka arrinkaasna waa arrin khalada oo muujinaysa qofka khayr mas-uulnimadiisa. marka intaas oo darajo
bay martaa ama intaasoo marxaladood si carada loo dejiyo qofba si bay carada kaga degtaa intaasaan caawa ku joojinaynaa wallaahu aclam